waddan taariikh dheer ku leh adduunka. dalka Yemen, waddan ay dagaaladu ragaadiyeen, dal ay dhaqanka tahay in habeen iyo maalinba la qaylo. halkan waa kanaalka cilmi baaris. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. dalka Yemen waxaa lagu magacaabaa Jamhuuriyadda Yemen, waxauna ku yaallaa galbeedka qaaradda Aasiya. waxuu ka mid yahay waddamada la isku yidhaahdo dunida Carabta. dalkan oo juqraafi ahaan dhaca dhanka koonfureed ee jasiiradda Carabta, waxuu xuduud la leeyahay Sacuudiga, Badda Cas, Gacanka Cadan, Badda Carbeed iyo waddanka Cumaan. waxaana loo aqoonsan yahay dalka labaad ee ugu weyn waddamada jasiiradda Carabta. baaxadda waddanka Yemen waa 527,968 kilomitir, waana waddanka kontonaad ee ugu dhulka weyn adduunka. calanka dalka Yemen waxa uu ka kooban yahay midabka gaduudka, caddaanka iyo madowga. dhanka kale, tirada dadka ku nool waddanka Yemen waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 34 milyan oo qof. waxa uuna noqonayaa waddanka 44aad ee ugu dadka badan adduunka. in ka badan 90% dadka dalkan waa Carab, halka ilaa 3% ay yihiin Soomaali. sidoo kale waxaa jira bulshooyin kale oo ku nool dalkan Yemen. caasimadda dalku waa magaalada Sanca, waana magaalada ugu weyn dalka. caasimadda labaad waxaa la yidhaahdaa Cadan, waxaana dalkan ku yaalla qiyaastii 200 oo jasiiradood, oo ay ka mid tahay jasiiradda quruxda badan ee Suqatra, taas oo asalkeeda la sheego inay raacsan tahay dhulka Soomaaliyeed. dood badanna laga galay lahaanshaheeda, balse weli jasiiraddan waa mid hoos timaada maamulka waddanka Yemen. marka la joogo Yemen, gaadiidku waxay isku dhaafaan dhanka midig. wax soo saar ahaan dhaqaalaha dalkan wuxuu badanaaba ku tiirsan yahay shidaalka. sidoo kale waxaa dalkan ka jira dhul beeraha ku fiican, taasoo ay ka baxaan qudaaro kala duwan. lacagta dalkani waxaa la yidhaahdaa Yemeni Riyaal. dhaqaalahaan dalkan waxa uu ku jiraa kaalinta 98aad, waxaana dhaqaalihiisa lagu qiyaasaa 31 bilyan oo dollar. luuqadda rasmiga ee dalka waa af Carabi. diinta dowladdu aqoonsan tahayna waa diinta Islaamka. dalkan oo taariikhyahanadu sheegaan in waayadii hore loo aqoon jiray Al-Yamanaad, waxuu xiriir ganacsi la lahaa dalal ku yaalla Geeska Afrika. waddankan wuxuu caalamka ku leeyahay taariikh fac weyn. tusaale ahaan, mar waxaa ka talin jiray boqoraddii Balqiisa oo maamuli jirtay boqortooyadii Saba. boqoraddan ayaa waxay nooleed xilligii Nebi Sulaymaan calayhi salaam. waxay ahayd boqorad awood badan oo xilligaa ka talinaysay dhul ballaaran oo ka mid ah dalka Yemen. boqoraddan ayaa waxaa lagu sheegay taariikh nololeedkeeda Qur'aanka Kariimka ah, iyadoo sooyaal cajiiba u dhex maray boqorkii awoodda badnaa nebigana ahaa ee Sulaymaan calayhi salaam. dalkan ayaa sidoo kale waxaa xilliyo kala gedisan soo maamulay imaaradihii kala gedisnaa ee Islaamka, iyadoo ugu dambaysay boqortooyadii Islaamiga ahayd ee Cusmaaniyiinta. dhanka diimaha, waddanka dadka ugu badan waa muslimiin sunni ah oo lagu qiyaaso 56% inay ka yihiin bulshada guud ee dalka. shiicada gaar ahaan qaybta Yasiidiyada boqolkiiba waa 42, halka shiicada qaybta Ismaaciiliyada ay ka tahay 1.5% tirada guud ee dadka. inta soo hartayna waxaa la sheegaa inay haystaan diimo kala gedisan sida Nasaarada iyo Yahuudda. marka laga hadlayo dhaqanka dadka Yemeniyiinta ah, gaar ahaan dharka, raggu waxay xirtaan macawis ama hoos xir. qaybta sare ee jirkana waxay qaataan shaati iyo cimaamad madaxa lagu duubanayo. sidoo kale waxaa dalka dhaqanka ah in raggu ay ku hubaysnaadaan toorrey ama midi, taasoo muujinaysa in qofku mar walba dagaal diyaar u yahay. dhanka dumarka markaan eegno, waxay xirtaan dharka caadiga ah ee asturan oo ay qaataan gabdhaha ku nool guud ahaan dunida Islaamka. Yemen waxaa la sheegaa inay ka mid tahay waddamada sida weyn uga jirto qabyaaladda, waxaana dalka ka jira kooxo u abaabulan habbeeleed oo haysta hub fara badan. waxaana alaaba dalka ka dhaca dagaallo u dhexeeya maleeshiya isu dagaasha qaabbeeleed ah. dadka waddankan waxay aad u cunaan maandooriyaha qaadka,
waxaana qiyaas dhowaan la sameeyey lagu sheegay in 90% ragga u dhashay waddankan ay yihiin muqayiliin ama kuwa jaadka cuna. qiyaastan ayaa sidoo kale lagu sheegay in 4 dumar ee dalkan ku nool midkood ay qayasho ama jaadka cunto. waddankan Yemen qaadku waa mid ka mid ah cuntooyinka la isku martisooro, waxayna ku magacaabaan quutu saalixiin. waddankan aynu ka hadlayno ee Yemen wuxuu ahaan jiray 2 waddan oo ay kala haysan jireen labadii boqortooye ee Cusmaaniyiinta Ingiriiska horaantii qarnigii 20aad. markii uu dhammaaday dagaalkii koowaad ee dunida, waxaa la aasaasay dalkii la dhihi jiray waqooyiga Yemen sanadii 1967. sidoo kale waxaa la aasaasay dalka koonfurta Yemen. labadii dal ee Yemen waxaa la mideeyey 22 bishii May sanadii 1990, waxaana madaxweyne ka noqday Cali Cabdalla Saalax. Cali Cabdalla Saalax ayaa ka hor intuusan xilka ka degin sanadii 2012 wuxuu dalkaasi maamulayay in ka badan 20 sano, balse barnaamijyo xooggan oo lagu diidan yahay xukunkiisa ayaa soo dedejiyey inuu isaga tago xilka, isagoon dalka ka bixin markii uu xilka ka degay. wixii ka dambeeyey